مصطفى مصطفى منبعه للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى السلام عليكم. philosophy falsafadu waxay ka mid tahay asalka ereyga philosophy erey ka yimid erey Greek philosophy af Soomaali ahaan wuxuu noqonayaa murti jacayl aqoon ahaan qeexidiisa hadaan u eegno waa barashada guud ee waxyaabaha asaasiga khuseeya jiritaanka aqoonta qiimeynta sababeynta garaadka iyo garashada ereyga philosophy waxa alifay oo loo tiriyaa filosoofkii xisaabyahanka ahaa Pythagoras oo dhashay qiyaas ahaan 570kii geeriyoodayna qiyaas ahaan xilliga markuu ahaa 495tii Nabi Ciise naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ka hor haddaba waxaa jiray niman Greek oo jeclaa inay fikiraan ay su'aalo isweydiiyaan waxaan loogu yeeri jiray nimankii filosoofku waa qof xikmad jecel filosofadu waxay isweydiin jireen su'aalaha dadka intiisa kale isweydiiyay waxaana ka mid ah su'aalaha isweydiin jireen badanaa sidee adduunka loo aasaasay maxaan u xanuunsanaa sidee baynu u dhimanaynaa sidee u dhaqmaynaa waa maxay macnaha nolosha iyo su'aalo badan oo kale oo aysan bini'aadamku isweydiin karin maskaxdoodana suuraysan karin mid ka mid ah filosofiyada ugu muhiimsanaa Athena waa Socrates waa mid ka mid ah nimanka ugu caansan filosofiinta Socrates ayaa ka mid ah sheekooyinka laga soo wariyo suuqa ayuu wareegi jiray oo dad kale lama sheekaysan jirin waxa cagdaan jiray dad jeexana uu gashan jiray sidoo kale Socrates wuxuu ahaa mid aamusan dadka la hadlin wuxuu rabay in dadka iskood u fikiraan oo aanay dhageysan waxa dadka kale dan leeyihiin Socrates wuxuu iska dhigi jiray sidii qof aan waxba garanayn dad badan baa jeclaa Socrates maskax badnaantiisa gaar ahaan ragga dhalinyarada dad badan oo cadawgiisa ahna way jireen waxa lagu eedeeyaa inuu ku jeesjeesi jiray ilaahiyada inuu habaabinayay dhalinyarada markuu Socrates 70 sano jiray waxa la xiray waxaana lagu xukumay dil waxa lagu xukumay inuu sun cabo Socrates wax buug ma qorin balse uu lahaa arday badan waxaana ugu caansanaa ardaygiisii Plato kaasoo bilaabay Athena dugsiga falsafada kadib markuu Socrates geeriyooday dugsigu wuxuu bixiyay academy waxaana lagu tiriyaa jaamacaddii ugu horeysay adduunka Plato wuxuu qoray 34 wada hadal Socratesna wuxuu ahaa inta badan mid ka mid ah wada hadalayaasha Plato wuxuu ardayda bari jiray sida loo doodo wuxuuna aad ugu hawleysnaa inuu ruuxda iyo afkaarta ay ku aaminsan yihiin jirka iyo waayo aragnimada aan dareemayaasha ka helno Aristotle 3 sano ayuu arday ka ahaa dugsigii Plato waxa loo yaqaanay filosof iyo saynisyahana Aristotle waxay lahayd muhiim tahay in baaritaan la sameeyo ama wax la tijaabiyo si wax loo ogaado wax ardaydiisii bari jiray in dabeecadda si qoto leh u fiiriyaan sharaxaana waxay arkaan Socrates Plato iyo Aristotle waxa lagu xisaabiyaa filosofiyaadkii ugu waaweynaa ee reer galbeedka sidoo kale waxa xusid mudan inaan hilmaamin dhakhtarkii Greek Hippocrates wax badan oo cusub ka ogaaday cudurrada taas oo keentay in lagu magacaabo aabaha caafimaadka مصطفى